والله بالله ويا برا حاجة برنا صاحب عال وحن مرينا أبوش هيه kuna wacan wanaagsan dawadayaal kusoo dhawaada kalmoy media iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay guud ahaan Soomaalida iyo caalamka qodobada wararkan ku daawan doonto waxaa ka mid ah sida hore dhacaad ku aragteenba ciidamada difaaca dowladda Puntland ayaa sii wada howlgallada baacsiga ay kula jiraan firxadka maleeshiyaadka kooxda Daesh iyagoo marba marka ka dambeeyay gaariyo guulo waaweyn waxa sidoo kale kula wadaagi doona sababta ka dambeysay in uu dib u dhaco shirkii golaha mustaqbalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka kaasoo la filayay maanta oo Khamiis uu ka furmo magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale socda waqti xaadirkan kulan u dhaxeeya madaxweyne Shariif Axmed Madoobe iyo sidoo kale Dani oo ay kaga arrinsanayaan sababta ka dambeysay in shirka uu baaqdo qorshaha markaasi ay la hortagayaan fil Soomaaliya iyo go'aanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee shirka uu ka qabsoomo xeendabka fil Soomaaliya qodobadaas ayaa daawan doontaa intaanu tabinta ku jirna wixii soo kordha ee ku saabsan shirka golaha mustaqbalka ayaan sidoo kale kula wadaagi doonaa qaybta dambe markale ha hilmaamin daawada inaad muuqaalka like gareyso aragtidaada qaybta faallada aad ku dhiibto sida aad u aragto yaa ka cagajiidaya in shirka golaha mustaqbalka Soomaaliya uu qabsoomo oo fil Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diidan inuu shirka qabsoomo mise golaha mustaqbalka oo ay qaybta ka yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ayaa diidan in shirka uu qabsoomo golaha ciidamada difaaca dowladda Puntland ay gaarayaan fariintaada dhiirigelinta qaybta faallada ee commentiga kula soo wadaag waxgaaga aynu ku hormarno markan howlgalka ka soconaya buraha calmiskaad ee gobolka bari ciidamada difaaca dowladda Puntland ayaa wada howlgallo sifeyn ah oo ay ku baacsanayaan firxadka maleeshiyaadka kooxda Daesh kuwaas oo ka dhacay deegaano ka tirsan buraleyda calmiskaad ee gobolka bari gaar ahaan tagga lagu magacaabo balade buraleyda calmiskaad tagga lagu magacaabo balade buraleyda calmiskaad waa halka ay weli ku dhuumaaleysanayaan qaybo ka mid ah maleeshiyaadka kooxda firxadka ah ee Daesh oo iyagu sanad ka hor lagu jibiyay dagaalkii calmiskaad ay markaasi doonayeen inay jiritaankooda ku ilaashadaan laakiin ay cagta mariyeen ciidamada geesiyaasha difaaca dowladda Puntland howlgalladii ugu dambeeyay oo ka dhacay deegaano hoos yimaada halka lagu magacaabo Habarbakujo waxa ay markaasi ahaayeen kuwa ay guulo waaweyn ciidamadu ku gaareen isla markaana ay gacanta ku soo dhigeen saanad ay markaasi kooxda ka carartay oo military oo isugu jirto kuwa laga farsameeyay qaraxyada iyo hubka kale ee markaasi kala duwan waxaana sidoo kale ay sheegeen inay la wareegeen ceelal cusub oo ay kooxdan horay markaasi ugu sugnayd isla markaana ahaa ceelasha ugu muhiimsan ee gacanta kooxdan ku jira isla markaana sidoo kale ay biyaha ka heli jireen inta badan kooxda waxaa gacanteeda marba marka ka dambaysa ka sii baxaya ceelasha muhiimka ah ee biyaha ka helaan mar haddii ay kooxdan markaasi lumiso ceelasha yar ee gacanteeda ku harsan waxay ka dhigan tahay gebi ahaanba jiritaankeeda buraha calmiskaad ee gobolka bari uu markaasi meesha ka baxay howlgalka ayaa hadda si habsami leh u socda ciidamada difaaca dowladda Puntland ayaana marba marka ka dambaysa waxay gaarayaan guulays daba jooga iyagoo u muuqda markaasi inay ka go'an tahay in waqti kooban ay ku soo gabagabeeyaan haraadiga kooxda firxadka ah ee Daesh buraleyda calmiskaad ee gobolka bari ayaa howlgalka ka soconaya waxa uu soo bilowday bilowga sanadkii aynu ka soo gudubnay 2025 waxaana markaasi uu hadda marayaa sanadkii labaad oo bishii labaad markaasi ay u socoto oo bartamaha ay marayso waxay ka dhigan tahay in ciidamada difaaca dowladda Puntland muddadii sanadka ahayd ee howlgalka uu socday ay xaqiijiyeen guulo waaweyn iyagoo gacanta ku dhigay firxad badan oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxdan kuwa kalena dhegta dhiigga u diray kuwana markaasi weli ku raad joogo oo baacsanaya marka laga soo tago howlgalka dhinaca dhulka ay ciidamadu wadaan waxaa sidoo kale kooxdan ay markaasi maara u laadahay inay ka baxsato duqeymaha dhinaca cirka ah ay fulinayaan saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya ka taageera howlgallada la dagaalanka kooxahan oo ay markaasi ugu horeeyaan Mareykanka ayaa duqeymo isdaba joog ah buraleyda calmiskaad ee gobolka bari ka fulinaya taasoo u muuqata in uu doonayo in gebi ahaanba lagu tirtiro jiritaanka kooxda Daesh howlgalka ayaa hadda si habsami leh u soconaya ciidamada howlgallada ugu dambeeyay ay wadeenna waxay ahaayeen kuwa ay ammaanka ku xaqiijinayaan sidoo kalena ay doonayaan in ay ku sifeeyaan goobaha ay kooxahan weli markaasi weerarada gaadmada iyo qaraxyada markaasi ay wadooyinka ku aasaan ay ka soo abaabulaan gudaha wixii ka soo kordha howlgalka calmiskaad wararkeena dambe ayaan kula wadaagi doonaa si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya hela mar kasta kusoo biir channelkan oo calaamada subscribe-ka noo taabo oo ka mid noqo daawadayaasha ku xiran Kalmoy Media waxgaaga markana dhinacaas iyo Muqdisho magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa ku sugan madaxweynayaasha Jubbaland iyo sidoo kale Puntland kuwaas oo dhowaan markaasi halkaasi soo gaaray isla markaana ujeedka socdaalkooda uu ahaa ka qaybgalka shirka golaha mustaqbalka iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kaas oo qorshaha uu ahaa in maanta oo Khamiis uu ka furmo magaalada Muqdisho laakiin dib u dhac markaasi uu ku yimid madaxda golaha mustaqbalka ayaa waxa ay iyagu ka cagajiidayaan in shirka lagu qabto xarunta fil Soomaaliya oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu aad u doonayay shirka halkaasi uu ka qabsoomo laakiin dhinaca kale
waxaa muuqata in gebi ahaanba cagajiidka markaasi ay ka socdaan dhinaca filla Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa waxay ku adkeysanayaan in shirka uu ka furmo xarunta filla Soomaaliya, halka dhinaca kalena ay doonayaan in shirka uu ka qabsoomo xarunta xindaabka Xalane. Marka la fiiriyo mowqifyada labada dhinac ay kala taagan yihiin, waa sababta ugu weyn ee dib u dhaca shirkan markaasi keenaysa. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta u ambabaxay safar dibadda isagoo gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, halkaas oo aan safarka uu ku tagay hore loo sii shaacinin isla markaana uusan ahayn mid qorshaysan, laakiin uu noqday safar degdeg ah oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu halkaasi ku gaaray. Haddaba waxaa isa soo taraya wararka ku saabsan sababta ka dambaysa in shirka uu dib u dhaco. Dad badan waxay tilmaamayaan in shirkan uu dib u dhaco inay sabab u tahay filla Soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasoo ka cagajiidaya in ay aqbalaan soo jeedinta isla markaana ay sameeyaan tanaasul ku aadan dhinaca xubnaha golaha mustaqbalka oo iyagu markaasi qaba aragti ah in shirka uu ka qabsoomo xindaabka Xalane. Haddaba iyadoo dhinaca markaasi ay dhinaca kale uu taagan yahay mowqifkiisa, waxaa hadda markaasi magaalada Muqdisho uu kulan uga socdaa waqti xaadirkan xubnaha golaha mustaqbalka oo ay ugu horeeyaan madaxweynayaasha Jubbaland iyo sidoo kale Puntland iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed Xasan Cali Kheyre. Dhammaan xubnahan waxay ka wada hadlayaan ajandayaasha ku aadan shirka markaasi ka furmaya magaalada Muqdisho iyo sidoo kale qodobada markaasi ay ku wajihi lahaayeen filla Soomaaliya. Madaxweyne Shariif oo saaka dib ugu soo laabtay dalka ayaa waxa uu markaasi qabaa in shirka uu markaasi noqdo mid ay dowladda federaalka Soomaaliya garwadeen ka tahay, laakiin dhinacyadu waxay qabaan in shirka uu ka qabsoomo xindaabka Xalane. Waxay ka arrinsanayaan sidii markaasi shirka uu qabsoomi lahaa iyo sidoo kale halka ugu dambeysay ay dhinacyadu isku raaci lahaayeen. Madaxweyne Shariif ayaa doonaya in shirka uu ka qabsoomo filla Soomaaliya isla markaana soo jeedinta dowladda federaalka Soomaaliya loo aqbalo si shirka uu qabsoomo, halka dhinaca kalena weli markaasi ay ka muuqato inay si weyn uga biyadiidsan yihiin. Sidoo kale waxay kulankan markaasi xubnahan kaga wada hadlayaan arrimo badan oo ku saabsan qodobada miiska saaran ee laga wada hadli karo oo ay ugu horeeyaan arrimaha doorashooyinka, hakinta wax ka beddelka dastuurka iyo midnimada dalka. Madaxweyne Shariif ayaa doonaya in qodobada ugu horeeya laga dhigo arrimaha doorashooyinka, waqtiga ay dhacayso wax ka beddelka dastuurka oo la hakiyo, midnimada dalka oo si wada jira markaasi dhinac looga soo wada jeesto, iyo sidoo kale in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu talada markaasi miiska soo dhigo si markaasi looga wada hadlo qorshe doorasho ay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisu waqtigan ay ku foolan yihiin isla markaana ay wadaan, halka dhinacan ay doonayaan markaasi xubnaha golaha mustaqbalka in gebi ahaanba la hakiyo arrimaha hadda socda ee filla Soomaaliya ay ku lugta leedahay oo ay ugu horeeyaan doorashooyinka qof iyo codka ah, wax ka beddelka dastuurka iyo sidoo kale in gebi ahaanba markaasi filla Soomaaliya waxyaabaha dalka muhiimku oo ay arrimaha doorashooyinka ugu horeeyaan ay noqdaan kuwo markaasi laga heshiiyay oo si soo gola ay dhinacyadu markaasi si wada jira uga heshiiyeen. Madaxweyne Shariif Xasan Cali Kheyre, Axmed Madoobe iyo sidoo kale Siciid Dani ayaa hadda waxaa markaasi la filayaa in dhowaan shirkooda uu soo gabagaboobo isla markaana qodobo muhiim ah ay soo saari doonaan. Lama oga inay warbaahinta la wadaagi doonaan iyo in markaasi uu noqon doono shir si hoose u soo gabagaboobay oo iyagu markaasi go'aamadooda ay si hoose markaasi ugu heshiiyaan. Warbaahinta ayaa kulanka xubnahan gebi ahaanba dibad joogka lamana sheegin sababta ka dambaysa. Qodobadan markaasi suuragalka ay ka wada hadlayaan ayaana ah kuwa markaasi laga helay ila ka agdhow dhinacyada oo ka tirsan golaha mustaqbalka iyo sidoo kale madaxweynayaasha Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ila markaasi ka agdhow. Weli waxaa muuqata in dhinacyada kala aragti duwanaantooda iyo sidoo kale in shakhsi kasta uu mowqifkiisu ku dhagan yahay in ay tahay waxa ugu horeeya ee hortaagan in shirka golaha mustaqbalka uu ka qabsoomo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Marka la fiiriyana waxaa muuqata in dhinacyada aysanba ka shaqaynaynin arrin qaran iyo sidoo kale dan qaran oo ay gacanta ku hayaan, laakiin haddii markaasi ay dan qaran ka shaqaynayaan mar hore ayuu shirka qabsoomi lahaa. Marka dhinacyo kala duwan laga eego waxay ka dhigan tahay in mid kasta danihiisa siyaasadeed iyo sidoo kale ajandayaashiisa gaarka ah uu ku foolan yahay oo uu doonayo in markaasi meelmarin rasmi ah uu helo. Ajandayaal qaran haddii ay jiri lahaayeenna waxay ka dhigan tahay in xubnahan ay gebi ahaanba mar hore heshiis gaari lahaayeen. Dhammaan siyaasiyiinta Soomaalida ee ku sugan magaalada Muqdisho oo u jooga ka qaybgalka shirkan ayaa lagu tilmaamay in ay yihiin kuwa waxa ay ka wada hadlayaan oo dhanba aysan ahayn ajandayaal qaran balse ay yihiin ajandayaal shakhsiyadeed. guud ahaan wixii ka soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya aragtidaada qaybta faallada ku dhiibo sida aad u aragto hagaaga